السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا عالم كمال كسوات كتشوكتان. إنه بدرميديا يو جور كيهورة قيبها وها قاب كل سو جور سنجري شو كان سو سدوها أيان كذا كين دونا شو كان سو حانجري مثله هل تريو أماسه لو أب تريو ولا هذا مرحلة قبر أيها شوكته ورجع أدي يجور كوجود بنا برجع سامح ولا كبحيو أما ميل فكوا هذا برياس أدبر لوجود برا لكن ما أنت أدوك اسكسلم وكفر دياو عالم كمال كسر قبل كجوك تبع أيض أيام بكوسوف فلاش يسا واحد نكيل يسا فدقة تشوكتو أي كوشة يسا واحد يتاي يا واحد دوني سبع برجع هره ويأتكد برياس سيد اللوجه هلا هذا واتكا هدي حتى الله تجو وجدر الله سيمرو وهبنا الله دحى أما سعد الله سعده سيد هذا اللوجه هلو أياتكا هذا ندي شجو قاب كيبل شوكان سك ويلك مركو يبعدين أنت أيدو تشعل ودونيس إنه جورستو ويل كان مرة أكتر دونيسه مرة المركو سواء يستوي كيت كأي حق الشكل ورق جرت إن حشود أوجيس أي هالكاس كيت كحق الشكل مرة جرتي خاص أي جرتي ويل كنا وحو سلها بالهذا إن هالمركزو أيوه راد جري أسوق عندنا عكلا أسوق جيت كيشوجا أيوه شكوين يهاساوي هالكوجا يعني هالحلالي أيوه هالكاوجا تورجري وحنا كم ذها هاساوي يجور كوي كلا هريانه هرين نوقد دروك ما نحب نجور شوكتاي قبل دينو يرادو بال ويرادو بال يعني أسيد يسهل لهين أو كتلا قالوا هبينكي أيضا السكال أيه تاسو مالنتي ويه أو مالنتي مركل شيء ما هدو قبل واحد بيحشون شرين كيت حق شيء كلا ورق شرين أيضا جيت ككل بعلين كجوينيسا أو هذا الكلام ده جيسين يسوى حبط هذا اللي يسنافين أيه قبل عاسي وحيا هيد مثل هو سيجيسو عن الهين يعني غسل يا هذا اللي يعني توريا منا عن الهين أيه وحيا لهيد قبل عاسي أيضا هو سيجيسا أو تشعل ويلكاس هذا اللي أو كوسو توريو أديات قلبي وهيسا هل لو سنافين أيه وحيا لهيد حشوت أوجيس هالمر هذا القصة بحا وحو جوجيبا وحو دول بكلا وريغبا وحو يعني سيدي اللباحي او قادبا غبداسي ساعه كبعدي ايا هذا الكسو بخي جيريو waxay oran jirtay amar heerkayga u tag ama se markale iimow waxayna maalintaas u ahayd wiilkaas farxad ay u ahayd gabadha laftigeeda farxadda hoosta ay ku haysatay laakiin banaanka may soo dhigin farxadda jacaylka iyo guurka banaanka ay u hayso yani himada ay u hayso wiilkeena mar aragto ama se ay la kulanto farxaddaas qalbiga ay ku haysatay haddaan diikadaada ka sii dhaco markay tiraad reerka u tag wiilku reerkiis kama aadayo wuxuu tagayaa adeeryaashiis iyo aabihiis wuxuu leeyahay ninkii la hebel gabar baan ku soo arkay reer hebel oo ayaa markaa in loo tago oo lay doono ayaa doonaya gabadhaas ayaa waxay ogolaatay inaan reerka ka doono ayay ogolaatay waxa loo soo diri jiray rag ayaa loo soo saaxiir jiray saaxiirkaas waxay doonayaan geedgal waxa la yiraahdo gabadha u soo geed fariisanayaan oo waxay leeyihiin geedka intay soo fariistaan reer hebel baa gabar ka doonayay halkaas ma loogu waajay martigelin ee loogu waajay gogol ayaa loo keen jiray gabdhihii iyo raggii gogol marka loo keeno la martigelin la soo dhaweeyo ayaa halkaasi lagu wada hadli jiray waxaana sooriyada keen jiray gabadhaas iyo gabdho kale oo la socda ma taqaan ninka doonaya ninkaas wiilkii u yimid miya mid kale miya la sii doonaa sidee wax la yeeli doonaa reerku aad iyo aad ba mas'uulsan yihiin reerka laftigiisu kay doonaysa ma yaqaanin hasa ahaatee waxa la qaariya baqaawiya timid baa la yiraahdaa mar kale ayaa la hoos sax la isugu sheegaa hebel inuu hebel doonayo oo u doonayaan raggaasi ayaa la isu cadeyn jiray isla markaasna waxa la dhigi jiray oo ardayaashu ay la wareegi jireen gabadhii inay ogolaadaan gabadhaas inay bixiyaan gabadhii leedisi waxa leedahay guddoon iyo gacan qaad baa loo jiray guddoon iyo gacan qaad ayaa loo jiray halkaas ay ku gudoobi jireen way ku gacan qaadi jireen gabaati baa dhiibi jiray yardaan la ballan qaadi jiray ama se waa la dooni jiray halkaasna xamaasad guur leh oo aad iyo aad u wanaagsan ayaa lagu kala guursan jiray xoolo badan marka laga qaado wiilku aad u naxsan oo isle xoolihii badnaa iyo tolo xageed kaleeysa qalabkan ayaa kuwa ka badan lagu dari jiray inanta gabadhii aad iyo aad u labisan xoolihii xoolo la mid ah awr loo raray
oo adduunka yani aqal weliga saaran yahay oo aad loo sarraxay ayaa wiilka raaci jiray iyo gabadhii hilbaa loo qali jiray dhan walba si walba loo dhibaadin jiray dhan walba waa laga rari jiray marka guurka hore sidaas ayuu ku bilaaban jiray marka dambana farxadda iyo isdhexgal ayuu lahaan jiray waxaa ku heshiin jiray laba reer oo col ah ayaa ku heshiin jiray isdhexgalka bulshada ka bilowday waxaa ka bilowda tarankii baa ka bilaabanaya reerkii qoys buu noqonayaa labada reer oo ka kala dhasheen wiilkii gabadhu ayaa waxay noqonayaan isku reer bay noqonayaan way isdhexgalayaan dib bay isaga guursanayaan kuwa kale reerkaasina dib dambe u dagaali maayo waa reer xidid iyo gacalba ah oo yacni aad iyo aad sidaas ayuu guurku faa'iido ku lahaa waxaana ogaan jiray beelaha ay ka dhasheen oo dhan ayaa ogaan jiray marka waa guurka hore qaabka guurkii dhexe isagana qaab kale uu dhici jiray haddana gabadha waxaa loolan jiray 3 qaab ayay ahayd mar waxaa la gabar isbixisay iyo gabar la bixiyey iyo gabar la soo doonay yani gabar isbixisay gabadhu waa gabadh ninka raacdo masaafaystay gabar isbixisay baa la yidhaahdaa gabadhii la bixiyana waa gabadhii loo soo geed fariisoo loo yimaado mid kale jirto waxaa jiray mid xoog lagula tago liraa dhabar garaac la yiraahdo xoog lagula tago oo marka sheekh loo geeyo gabadhaas liraa isdhiib gabar yahay oo ogolow meherka waa ku soo doonaadaan inta ku soo xambaarnay oo ku soo wadnay dhabar garaac baa loolan jiray saddexda qaab way dhici jirtay waxaa kale oo jiray qaab kale la yiraahdo inta la kaxeeyo wiilka oo guri geeyo oo leeyahay gabadha asagoon la hadlin ina hebel baa geeyay gurigaasi halay doono raggeedii oo haloo doono yacni ogolaanshaha laga soo qaado saddexda nuucba way dhici jirtay marka guurka hore waa asaga caynkaas ahaa oo maanta aan ku soo wadnay arrintaas ayaan yacni ku soo gabagabaynaynaa aad iyo aadna waa aad ku faraxsanahay barnaamij meediyaha iyo bulshada daawanaysaba waa idin salaamaya assalaamu calaykum wa raxmatullahi wabarakaatu sheergaraysaan oo aad iyo aad yacni askaraab saartaan oo aad iyo aad u sheergaraysaan oo meel kasta laga daawado Soomaalidu way u baahan tahay bal qaabkii la isu guursan jiray berigii hore ilaa hadda bal xaaladdu sida u dhacayso iyo khatarta uu leeyahay mid ka dambe asagana waa ka sheekay doonaa marka kii horena weli fari kama qodna qaybta koobaad weeye insha Allah taala sidaas iyo nabadgelyo